noloshayda. waxaad tahay boqoradayda. Waxaad tahay suldaankayga. waxaad tahay kalsoonidayda. Waxaad tahay dhammaystirahayga. waxaad tahay dhiirigelisadayda. waxaad tahay taliyahayga. waxaad tahay dowladayda hoose iyo tasaraba. waxaan kaaga jecel xasidkaada kuligin أنا ماما يا ماما زي يلا she needs to go guys. rayaan bajaaj iyo qamar suudaani lamaanaha qarniga lamaanaha sanadka jacaylkii waa lay taagay rayaan bajaaj iyo qamar suudaani oo dareenkooda iyo shucuurtooda iyo jacaylka isku qabaan iyo xadka uu gaarsan yahay isku cabirayo ama isku sheegayo waxay taagan yihiin noloshayda tahay farxadeyda tahay qalbigayga tahay rayaan bajaaj iyo qamar suudaanidii hore u taqaaneen ma ahan qamar suudaani kale oo cusub oo yacni shaaruux qaan iska barajeenayo waceelka rayaan bajaaj iyo qamar suudaani qiyaas ma lahan ilaahay ha isku xafido ilaahay ha isku dhaqo jaceelna cadow ma waayo dad badan oo waxaa jiro wada jirkooda neceb dad badan waxaa jiro noloshooda neceb dad badan waxaa jiro inay isku arkaan badiidan laakiin alxamdulilah laba qalbi ilaahay kulmiye waaye qamar suudaani iyo rayaan bajaaj ilaahay ha isku dhaqo ilaahay ha isku xafido wax la qiyaasi kara ma ahan jaceelka sanadka rayaan bajaaj naag adag waaye naag karti leh waaye naag jaceelkeeda kasban karta waaye naag shaqadeeda kasban karta waaye naag maasha allah tabaaraka allah waaye naag oo kaliya lama dhihi karo rayaan bajaaj naag iyo bar waaye qamar suudaani hore waxaa la dhihi jiray naagahoo ku dheelaa naagahoo waxaysmaa nin kasto naag ku dheel ah hadduu helo naag kasban karto naag adag naag yacni qalbigiisa iyo dareenkiisa xakumi karto uu helo wax badan ee iska bedelaya sida ay aragtiin sida qamar suudaani oo kaleente ilaahay ha isku dhaqo binihaaya wuxuu helay naag fiican farxadiisa ka talinayso horumarkiisa ka talinayso jecel maasha allah tabaaraka allah horumartiisa jecel daneynayso kufaanayso uu helay qamar suudaani ninna mar hadduu helo naag kufaanayso naag kasbanayso qalbigiisa iyo dareenkiisa xakameyn karto waxaa waaye meelba kama aadayo sida ay aragtiin allah isku dhaqo daawada wararkii ugu dambeeyey ee social mediaha iyo Soomaali drama Soomaali duumo waxa waaye qoftii Habi Axmed ahayd Habi oo dharka soo dhigatay Habi oo waji cusub aan lagu aqoonin la imaaday Habi oo ilaahay xaalkeeda og yahay ee dadka qaar leeyihiin Habi markii la furay saqajaan ay noqotay ciyaal suuq ay noqotay way halawday dharkay soo dhigatay way waalatay maxaa ka waalay gabadhii la leeyahay Habi wixii ka waalay Habi waxay ahayd gabar yar oo qurux badan Habi waa gabar yar oo qurux badan oo maasha allah edab iyo asturnaan lahayd laakiin wixii ka waalay ninkii furay ka waalay sababta waxaa leh ee Habi dharka u dhigatay ninkii furay gabar yar oo nolosha macaankeeda la dhadhansiiyay haddana lagala noqday waaye Habi xaaladda ay ku sugan tahay waxa uu sabab ninkii furay Cabdifitaax Albaqri uu sabab Habi xaaladdan ay ku jirtay Habi waxa waaye xaaladeeda ma sahlana ilaahow dharka jabkan yar ee wadwadad ku cilcili waaye kolay dad badan ku fogaadeen dad badan qof dadka isku aragti ma ahan dadka isku fikrad ma ahan dad badan ku fogaadeen oo sida aragtidooda iyo sida u arkaan uga hadlay Habi Axmed laakiin ani waxa leeyahay ilaahay dharka ha ku celiyo macaana la dhadhansiiyay waa lagala noqday sababtaas waxaa leh ninka furay madaxiisa ilaahay ha ku shubo ilaahay ceebta ha asturo hadaama qashidna ceeb dhan ma asturno waatan ayadu ku hortaataalo oo xaaladan Habi gaarsiisay Soomaali drama Soomaali duuma maalin walba wax cusub arkayna dig waxa waaye qof ay soo qaabiyay waa lagu mashquulaa qof dhar soo xirtay oo xijaabtay waa lagu mashquulaa qof soo ooyay waa la ooynaa qof soo caaytama waa la caaytama qof walba wajiga oo la imaado Soomaalida horteed la dhaqmaa shoodki damiirki sharafti gabarnimo
intiba way dhamaato goday gasho waxa waaye gabdhe indha adag adduunka ku soo haray muuqaalkan aragtaan gabadhaani waa Kenyaati oo u shaqeynaysa reer Carab ah shaqaale u ahayd ilmahan aragtaan waa ilmaha ay soo korisay ee ayada haysay shaqaalaha u ahayd ilmahan waxay u oynayaan ma ahan hooyadood iyo aabahood ma ahan habaryartood ama eedadood ma ahan abtigood ama adeerkood ma ahan ayeeyadood ama awoowahood waxay u oynayaan waa gabadha shaqaalaha u ahayd oo ka safrayso ka tagayso nafta meesha u roon ay raacdaa ilmahana qofkii u roon naxariis jacayl farxad ee ka helayaan ee raacayaan sida aragtaan ilmahan yaryar ilmo yaryar waaye ma ahan ilmo aqli leh oo maanta wixii loo sheego sameynayo waa ilmo qalbiga ka socdaan ma ahan ilmo aqliga ka socdaan oo yani wixii lagu akhriyo oo kaliya sameyn karaan waa ilmo qalbiga ka socdaan oo qofka jecel qofka u naxariisanayo qofka farxadda siinayo qalbiga ka dareemayaan gabadhan waa gabar Kenyaati Afrikaan xilliga shaqada ee reerka fiisaha ku keensadeen ee u shaqeynaysa u dhamaaday haddeerna waxay ku jiraan macsalaameeska ama tawdiic xilliga ee wadankeeda u laaban lahayd shaqadii u dhamaatay xilliga fiisaha lagu keensaday cid walba wanaagsan wuxuu la kulmayaa gabar shaqaale wanaagsan Rosina waa gabar Kenyaati gaal laakiin naxariisteeda iyo ilmaha jaceelka ee ka kasbatay mid la qiyaasi kara ma ahan muuqaalkan wuxuu ku tusinayaa qiimaha ay naxariista leedahay wanaag wax la sameysto oo la beerto waxa ugu wanaagsan qof bini aadan ina wanaag ka sameysatid farxad aasiisid jacayl aasiisid muuqaalkan wuxuu baraha bulshada qabsaday shalay xalay ilaa iyo maanta muuqaal aad iyo aad caalamka oo dhan gilgilay waaye muuqaal caalamka oo dhan qeyro geliyay qalbigiisa taabtay waaye gabadhan aragtaan waa gabar shaqaale oo Kenyaati Rosina la yiraahdaa Rosina waxay soo korisay ilmahan waxay ka heleen naxariis farxad jacayl inta waalidkooda ay ka haystaan in ka badan gabadhu way saafiraysaa wadankeeda u soo saafirey bacdi ma wadankeeda ay u soo saafiraysa ilmihii waxa laga fujin la yahay gabadha shaqaalada ahayd ee ka saafiraysa waxay diidan yihiin inay ka saafirto waxay ilmihii dareensan yihiin markay ka tagto Rosina ee ka saafirto wadankeeda ee u laabato booskeeda qof u buuxin kara inoo lahayn ilmaha qofkii waqti geliyo qofkii wanaag tuso qofkii farxad tuso qofkii naxariis tuso kama ahaan karaan sida aragtiin gabadha wadankeeda u laabanaysa ilmihii aabahood iyo hooyadood way ka soo cararayaan way ka soo ordayaan waxay u ordayaan gabadha shaqaalada ahayd ee saafiraysa Rosina muuqaalkan waa muuqaal ka yaabsaday caalamka oo dhan gilgilay waa gabadha ugu horeysay qadaamo oo cid Carab u qadaameynayso oo ilmo Carab soo korisay oo haddana yani naxariis badan iyo jacayl badan iyo farxad badan siisay oo ilmihii ay ka meermi la yihiin ilmaha yaryar waxay leeyihiin Rosina hanaga tagin maadaama ee ilmaheeda iyo dadkeeda iyo wadankeeda ee u socota ilmihii aad iyo aad ay u qiiraysan yihiin muuqaalkan wuxuu qeyro geliyay oo qalubtooda taabtay dhammaan caalamka dadka ku nool Carab iyo cajib madow iyo cadaan muuqaal taabtay qalubtooda waaye muuqaalkan wuxuu ku tusinayaa gabadha shaqaalada markay gurigaaga ka shaqeynayso markaa naxariis u yeelatid kalgacal iyo wanaag tustid oo guriga ugu dhigtid inuu gurigeeda yahay oo kale ayadana wuxuu kugu shaqeynaysaa si qalbiyan daacadnimo gaal iyo muslim waxay rabtaa ha ahaato naxariista adiga tustid laba jibaar naxariis ay kula dhaqmaysaa si daacadnimo ay kugu shaqeynaysaa